wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiinba gobol walba aad ku sugantiin iyo si walba aad noola socotiin. Halkani waa warbaahinta kulmiye oo fadhigeedu u yahay magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari. Waadihii aad nooga barateen war wixii dal iyo dibad naga soo gaaray. Qodobada warka ugu door karoon waxaa kamid ah madaxweynaha dalkani Kenya oo ka tacsiyay geeridii ku timid aabaha wasiirada dhulka ee dalka. ismaamulada dalka oo heli doona 52.2 bilyan oo shilinka dalka ah. shilay 3 qof ku dhinteen oo ka dhacay ismaamulka Homa Bay. Ra'iisul Wasaare Roble oo ka qayb galay kulan loogu duceeyay dadkii ku dhintay qaraxi Soobe. caalamkana waxaad ku maqli doontaan dhageystayaal xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay dhowr wadan oo kamid ah caalamka. qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontiin. waa habeenimo Arbaca ah ee taariikhda ku beegantahay 14 bishii 10aad 2020. markale ku celi warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beerraad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan aad ku maqli doontaan aynu ku bilownay. madaxweynaha dalkani Kenya Mr Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ka tacsiyay geeridii ku timid aabaha dhalay wasiirada dhulka dalkani Kenya Koroney. qodobkaasi oo faahfaahsan waxaynu haysaa waryaheena Nimco Cabdirasaaq. madaxweynaha dalka Mr Uhuru Kenyatta ayaa tacsiyo u diray qoyska ehelada iyo asxaabta wasiirada arrimaha dhulka Farid Karone oo dhawaan aabaheed Muse Edward Kipchorit Karone geeriyooday. Karone ayaa galinkii dambe ee shalay geeriyooday waxaana da'diisu ahayd 74 sano jir. waxa uu ku geeriyooday isbitaalka weyn ee deegaanka Kapsabet ee ismaamulka Nandi kadib shil uu ku galay wadada xiriirisa magaalooyinka Kapsabet iyo Eldoret. Mr Kenyatta ayaa odayga qoyskan ka baxay ku tilmaamay waxgarad aad loo qadarin jiray oo kaalin weyn ka soo qaatay arrimaha waxbarashada. madaxweynaha ugu sareeya dalka ayaa sidoo kale sheegay in Muse Karone lagu xusuusan doono dhiirigelinta uu sameyn jiray beeraleyda da'yarta ee Nandi. galinkii hore ee Saaka ayaa waxa uu shil ka dhacay ismaamulka Homa Bay kaasi oo sida laga soo warinayo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 3 qof. shilalkaasi ayaa waxa la sheegay inay ahaan 2 shil oo isxigeen sida warbixintan uu inoo weegayo waryaheena Mukhtaar Macallim. ilaa 3 qof ayaa ku dhimatay shil labaad oo ka dhacay ismaamulka Homa Bay kadib markii isku dhaceen mooto iyo booyashada heeraha wadada oo geeskaanba ee deegaanka koonfurta Ruchonyo. habeennimadii xalay dadka dhintay waxay ahaayeen qof watay mootada iyo rakaabkiisa u socday magaalada Oygiis daqiiqado yar ka hor 8 fiidnimo. shilka ay misaacadeen kadib markii 4 qof oo kale isla isgoyskaasi ku dhinteen. shil kale oo ka dhacay xarunta ganacsiga ee Kadongo ee bariga Ruchonyo. shirka sadfiidnimo rakaabka waxay ku laabanayeen gurihooda kadib hawlo maalin socod ay ka wadeen tuulada Daris ah. goobjoogayaal ayaa sheegay in darawalka booyada uu lumay xakameynta gaariga kadib wuxuu ku dhacay mootada wuxuuna goobta ku dilay ilaa 3 qof. taliyaha ciidamada booliska koonfurta Ruchonyo Lilis Wachira ayaa sheegay in darawalka iyo wiil Taniboy ah ay ku baxsadeen goobta shilka ka dhacay. koox dhalinyaro ah ayaa u hanjabay inay weerar doonaan wadayaasha taxadarka aan lahayn. waxay sheegtay wadayaasha gawaarida inay taxadaraan markay isticmaalayaan wadooyinka mashquulka ah ee sida mashquulka badan uu kala socdaa. Mukhtaar Macallim, warbaahinta kulmiye. waa mahadsantahay Mukhtaar. suldaanka beesha reer oo xasan ayaa la kulmay salaadinta beelaha Tego ismaamulka Mandera. warkaas oo faahfaahsan waxa inoo haya waryaheena Cabdullaahi Xuseen oo dhinacayga fadhiya. kulan aad loo soo agaasimay ayaa waxa iskugu yimaadeen salaadinta ugaasyada iyo sidoo kale waxgaradka beelaha Tego ismaamulka Mandera ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Mandera. kulankaasi oo ahaa mid lagu soo dhaweynayay suldaanka cusub ee beesha reer oo xasan ayaa waxa dhawaan ay u doorteen ayaa waxa ay salaadiinta iyo ugaasyada iyo waxgaradku dhamaantood ay soo dhaweeyeen waxayna ka rajeeyeen in uu cadaaladda ka shaqeyn doono iyagoo sidoo kale ballan qaaday in ay si dhow oo la shaqeyn doonaan suldaanka cusub. waxaa kaloo u mahadcelinayaa dadkii noo yeeray oo xafladan nooga yeeray cali masaarka suldaanka beesha reer xasan yaan maxay ahayd aan idin mahadcelinayaa iyo beesha sidii noo soo dhaweysay aan u mahadcelinayaa. waxaa dhintaas kadib aniga suldaanka waan garanayaa waa nin maxay ahayd mutacallim mar alla markuu ka soo dhameeyay jaamacadda islaamiga uu soo dhameeyay Mandera uu imaaday waxaana noola yeeray oon filaynay in uu maxay ahayd collegekan ama iskuulkan aqoon
xarunta oo la yidhaahaa Boys Town in uu maxay ahayd qabani doono saasaan ugu wargeli saanu sugaynay waxaana la yidhaahdaa wadaadkii kulli waa wahay kadib haddana asaga oo nominate council uu noqday way ka dambeeyeen xagga ay Nairobi u dhaafay saas ayaan aqoon ugu leeyahay ku-xigeenkiisa chiefkii Arabiya deganaa jiray asoo shacab oo bixmishtri astaan chief ka noqday haddana meesha la yiraahdaa hareer hoosle asagana aad iyo aad man u naqaano waaya marka saadaradeed waan soo dhaweynaynaa cid alla cidina xishmaysay oo noo yeeratay ayaan yeeritaankeeda ajiilaynaa oo taxliinaynaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa khayr Allah idin siiya magacaygu Ali Maxamed Nuur baa la yiraahdaa dadkuna waxay ii yaqaanaan Ali Sugu waxaan ahay suldaanka beesha sade ee deegaankan deganoo kamid ah dadka walaalaha oo meeshan degan waxaan mahadinayaa marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo halkaas uu kana keenay muslimiinta walaalaha oo deegaanka ku walaalka diinta ku walaalka iyo dhalashadaba ayaan salaamaya ee maantay meesha isugu timid ayna u yeereen ree aw xasan way doonayaan inay noogu soo bandhigaan suldaankooda cusub hadee suldaanka waana soo dhaweynayaa aad baa u mahadsantihiin waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waad mahadsantihiin dadkii maanta ay soo agaasimay hawladan inoo yeelay meeshaan waad ku mahadsantihiin mahad aad iyo aad maartaad leedihiin xaddi ree xasane suldaan sheekh saciid iyo maalgudihiisa waan qaabilnay haddaan nahay beesha reer Mandheera waan qaabilnay suldaan sheekh saciid soo dhawow shaqo ku soo dhawow cadaalad ku soo dhawow insha allahu wada shaqeyn waan waxaan rabnaa inaad maartay annagana wada shaqeyn waan soo dhaweynaa waa la shaqeynaa insha allahu suldaan sheekh saciid ree xasane waan qaabilnay waad mahadsantihiin suldaan Siciid Qaasim oo isagu gogasha la iskugu yimaade ee Mandheera ka dhacday dhigay ayaa waxa uu dhankiisa sheegay inuu cadaaladda xooga saari doono waxa uuna u mahadceliyay dhammaan intii ka soo qayb gashay ee soo ajiibtay in soo dhaweyntiisa ay ka qayb galaan oo cidii beesha reer xasan isku kiirtay hadaad tihiin qabaa'ishii ugaasiri mathala ee qabaa'isha degan Mandheera وهذا بأمها سنتين دعوان يومارة الملتقات كان أي في النبي إلى سوء جبتان هذا هو أمها سنتين أحنكم أمها دعلينا والد كيغا وهدنا أبتيغا محمد كاهي عثمان وكمها دار حاج بولو إذا دتك شرفت لو ماشا كسوة الغيب قلي ربي حوانبا يعني أمها دعلينا تانسواتي سودويتا marka midnimada waxaan rajaynayaa maartay inaan ku diyaarno oo maartay mid noqono countiga aniga abaaran ka maqnaa ilaa dhowr 10 sano dulqaad diyaar ku safar lagu safraan waxaan soo raacay gaariyan ka soo qaatay Nairobi ilaa waxaan soo maray shirkad faadi ma wili arkaan soo maray warta guud ka soo dhacay tarbaji xagga ka soo bilaabay ilaa dhinacan ilaa shirkad faadi ninkan waxa waaye waa ismid county هذا الاسم نعمة بدنا جرت نعمة وحارة اللي بشكري شكر النعمة وحواي الحمد لله كلمة هذه إما إله سبحانه وتعالى حق شكري نقول هذا اليوم يا أم بعنا من بين أمريكا سوق اللي قلت يعني ملال أي سبدش هرور بدنا كجر حق اسمها حق اللامية حق الجيه حق اسمتها وحياة بدنا وحارة مالتي هرمر saadadkii waqtigaas noogu dambeysay waxyaalo badan horumaran ku aragay waxaan rajaynaynaa dhinacyaha dhiman oo insaaniga ah oo humanka ah iyadana iska imaan doonto rajaynaynaa ilaa adduunyada midda ugu dambeysay waxaa waaye aan dadku u sheegayo dowladdan aan la leenahay kenya xaqan ku leenahay iyadana waa waajibaan laga saaran anagana xaqan ku leenahay waajibkeeda inaan si fiican oga dalbanno xaqayna u leenahay inaan si fiican siino oo dhulkan ammaan ka keeno dowladda lana ammaan aan ku noolaano wixii khayrna aan dadka gaarsiin kara inaan gaarsiino intaas ayaa maartay dhinacaasna aga baxaya marka midnimada raadiyo dadka dhan oo khilaafka hal yareeyo anagana insha allahu tacaala waxaan isku dayayaa waxaas inaan ka qayb qaato arrimahaas inaan ka qayb qaadana isku rajayna insha allahu tacaala ramadaan adeertii waa mahadsantihiin waana soo dhawaanaysiin marka waxaan leeyahay soo dhaweyntiina iyo farxadda ay soo dhaweyseen oo ay ku mahadcelinahay mar labaad marka waxaan leeyahay khayr isku ognahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa tahay weli waxaad nagala socotaan raadiyaha kulmiye mowjada 9.9 Garissa ee nawaaxigeeda. maanta oo kale dalkani Kenya waxaa laga xusaa maalinta ciidamada difaaca dalkani Kenya. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay wariyaheena Yusuf Gaas. sanad walba maanta oo kale oo ku beegan 14 bisha Oktoobar waxaa dalkani Kenya looga dabaaldegaa maalinta ciidamada difaaca dalkani Kenya ee loo soo gaabiyay KDF-ta. sanadkani waxaa loo dabaaldegay sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegtay maalintii ciidamada difaaca ee dalka kuwaasi oo naftooda u huray in ay nabad iyo xasilooni ku noolaadaan shacabka Kenyaanka. I take this opportunity to salute our soldiers who are deployed in the various forward operating bases in Somalia on this auspicious day when we commemorate the Kenya Defence Forces Day. The 14th of October of every year since 2011 is set aside in the Ministry of Defence to remember the ultimate sacrifice that your colleagues have paid in the search for peace in our neighboring country, Somalia. As your Cabinet Secretary, I am deeply grateful for the privilege to provide strategic guidance, to work and be associated with patriotic, brave men and women that every day guarantee our nation's safety and security. Men and women that have answered to a higher calling to defend the territorial integrity and sovereignty of our motherland and to protect the freedoms of Kenyans. wasiirada difaaca ee dalkani Kenya Monica Juma ayaa uga mahad celisay ciidamada isugu jira ragga iyo dumarka ee isu tagay isla markaana ku midoobay difaacista dalkooda iyo sidoo kale shaqada ay ka hayaan dalalka deriska ah sida Soomaaliya oo kale taasi oo ay sheegtay in tan iyo markii ciidamada Kenya ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya sanadii 2011 ayaga oo ka qayba ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee loo soo gaabiyay AMISOM ay wiiqeen awoodda ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama dalkaasi Soomaaliya. Since the KDF entered Somalia theater, Al-Shabaab activities have significantly reduced, and while this terrorist group remains a threat, it has been greatly degraded. Your contribution to AMISOM remains a game changer, and for this I salute each and every one of you today. waxa ay sidoo kale wax lagu farxa ku sheegtay muuqaal balaha bulshada qabsaday kaasi oo ay ka soo muuqdeen iyaga oo ciidamada militariga ee dalkani Kenya ay ilaalinayaan dad fara badan oo muslimiin ah kuwaasi oo tukanayay salaad taasi oo wasiirada Monica Juma ay sheegtay inay tahay wax lagu faanay isla markaana ay sheegtay mid baaldahaba ka galaysa sawirada muuqaalada noocan iyo kaleeta ah ay ka soo muuqdaan ciidamada difaaca. Nothing could have made any Kenyan prouder than a picture circulating during Ramadan of KDF soldiers standing guard to watch over their brothers pray. This act because we believe in the freedom and sanctity of religion and worship and stand ready to defend it. wasiirada ayaa ugu baaqday ciidamada in ay sii wadaan dadaalada mutadawacnimada ee ay ciidamada difaacu ugu jiraan inay ku sugaan amniga guud ee dalkani Kenya iyo xuduudihiisa. Your families at home have made an equally big sacrifice of offering you to serve your motherland Kenya, and to them I say thank you very much. You are part of our effort to deliver on peace. The Ministry of Defence stands steadfast and will continue to support our operations. We have your backs, so go forth, you daughters and sons of Kenya, to defend and protect the Republic of Kenya and all its citizens. dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dalkani Kenya mudane Uhuru Kenyatta oo isagu sidoo kalena ah taliyaha guud ee ciidamada qaranka oo ka hadlayay munaasabad lagu soo bandhigayay gawaari dawladdu ay leedahay oo dayactir lagu sameeyay oo shaqaalaha dawladda ee qaybihiisa kala gadisan ugu baaqay in ciidamada qaranka ay kaga daysadaan u adeegista marka ay timaado shacabka. Yusuf Gaas, warbaahinta kulmiye. xildhibaanada laga soo doortay deegaanka Malindi Aisha Juma ayaa lagu soo oogay dacwad dil iyo eedeemo kale sida warkaas markale inoo eegay wariyaheena Yusuf Gaas. agaasimaha waaxda dacwad soo oogida ee dalka Nuruddin Xaaji ayaa dacwad dil iyo eedeymo kale waxa uu ku soo oogay xildhibaanada laga soo doortay deegaanka Malindi Aisha Juma. Juma iyo ilaaliyaheeda Masjoojiyeena ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilkii toogashada ahaa ee loo geystay Gambi Jola
oo adeer u ahaa siyaasi ka tirsan xisbiga ODM oo lagu magacaabo Robin Katana. dilka lagu soo eedeeyay Aisha Juma ayaa waxa ay dhacday sanadii 2019. dambi baarayaasha Kenya ayaa ka baaraya Aisha Juma dambiyada kala ah kicin dadweyne iyo dil ay geysatay. booliiska ayaa sheegay in ay ogaadeen in xildhibaanada Aisha Juma ay jabisay xeerka ololaha doorashada ku celiska ahayd ee ka dhacday Gananda deegaanka Malindi. dacwadani ka dhanka Master Juma ayaa imaanaysa 2 bilood kadib markii ay wajahday arrimo musuqmaasuq oo la xiriira habka ay u maamushay lacagta horumarinta deegaanka ee loo yaqaan CDF-ta. Yusuf Gas, warbaahinta kulmiye. mahadsanid Yusuf Gas. dugsiyada dalka ayaa looga digay inay isticmaalaan daawada looga hortago in lagula dagaalamo caabuqa COVID-19 iyadoo ay sidoo kale jireen muuqaalo muujinayo in arday qaar lagu buufiyay daawadaasi. warbixintaasi waxay inoo heysay wariyaheenna Qatra Abshir. wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa soo saartay digniin ah in daawada lagula dagaalamayo cudurka COVID-19 aan la gaarsiin ardayda. arrinkani ayaa ku soo aadaya kadib markii baraha bulshada lagu arkay muuqaal laga dhex arkaya gabdho arday ah oo la buufinaya. isniintii ayay ardayda fasalada 4 iyo 8 ee dugsiyada hoose dhexe iyo fasalka 4 ee dugsiyada sare dib ugu laabteen goobaha waxbarashada. xogaha sare ee wasaaradda caafimaadka u qaabilsan dhanka maamulka Dr. Rashid Aman ayaa xusay in waxyaabaha jeermiska dila ee lagu buufiyo goobaha kala duwan ee saameyn dhanka jirka ah iyo mid maskaxeed ku yeelan karaan bini'aadamka. waxa uu intaa ku daray in muuqaalka la faafiyay uu soo gaaray wasaaradda caafimaadka sidaas awgeed dabagal lagu hayo si cidii ka dambeysay loola xisaabtamo. barsaabka ismaamulka Machakos Dr. Alfred Mutua ayaa dhankiisa xusay in falkan uu yahay mid aad looga xumaado isagoo carabka ku adkeeyay in ardayda aan sidii cayaankii loo buufin. wakikuwa fumigated kama mende, wanapigwa dawa kama mende. Mimi nimeshtuka kuona filamu fulani, sijui imepigwa wapi, ya wasichana wakikuwa fumigated kama mende, wanapigwa dawa kama mende. Wasichana, watoto wetu tumezaa, wanapigwa dawa ambapo hata World Health Organization ilitangaza ikasema fumigation ya binadamu ni kosa, ninaleta madhara zaidi kuliko kuua COVID. Haisaidii hata kidogo. Sasa mimi nashindwa, ni nani kwa akili zake alifikiria ya kwamba wasichana wetu wamekuwa mende, wanapigwa dawa? Ni jambo vibaya sana. Na mimi naomba serikali kuu tafadhali, tuache kukimbilia haya mambo. Tuache kukimbilia haya mambo na kusahau ya kwamba tunapaswa kuwa na utu. haatanna Soomaaliya, Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ka qayb galay kulan loogu duceeyay dadkii ku dhintay qaraxii Soobe. warkaas oo faahfaahsan waxa inoo haya Cabdiraxmaan Ciltire. Ra'iisul Wasaare Roble oo ka qayb galay kulan loogu duceeyay dadkii ku dhintay qaraxii isgoyska Soobe. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay kulan loogu duceeyay dadkii ku dhintay qaraxii Soobe oo ka dhacay tiyaatarka qaranka. kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan kuwaasi oo ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda Soomaaliya, gobolka Banaadir, culumoodiin iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah. kulankani oo ahaa mid loogu duceynayay dadkii lagu xasuuqay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe 3 sano ka hor maanta oo kale ayaa sidoo kale looga arrinsaday sidii looga hortagi lahaa weerarada noocaasi oo kale in ay sii dhacaan. Ra'iisul Wasaare Roble oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in hadda kadib ay dawladda kordhinayso la dagaalanka ururka Al-Shabaab, isagoo sidoo kale ka codsaday qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ay dawladda ka garabsiiyaan arrintaasna ka garab istaagaan. waad mahadsantahay Cabdiraxmaan. maamulka Tanaba ee dalka Tanzania ayaa waxa ay sheegeen in la xakameeyay dab qabsaday buurta Kilimanjaro. sida warbixintaasi aynu weegayso waryaheena Ismahaan Maxamed. maamulada wadanka Tanzania ayaa sheegay in ilaa 500 oo qof oo si iskood ah isku soo saaray ee qayb ka qaateen in la xakameeyo dabka dhacay buurta Kilimanjaro. dabka qabsaday buurtan ugu dheer buuraha qaaradda Afrika ee wararku sheegayaan intaas oo mayl laga arkaya. bayaanka soo baxay maamulka Tanaba ee Tanzania ayaa lagu sheegay in lagu guuleystay xakameynta dabka.
dabkaasi oo burbur xoogan u geystay buurta Kilimanjaro ayaa ugu dambeyn la soo afjaray. haatanna wararkan idinkaga hayna caalamka. xaalad degdeg ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu soo rogay dhowr wadan oo caalamka ah. qodobkaas oo faahfaahsan waxaa inoo haya Mukhtaar Macalin. dhowr wadan oo caalamka ah oo ku yaala Yurub iyo Aasiya ayaa bilaabay inay dhankooda xaalad degdeg ah ku soo rogaan kadib markii si weyn ugu soo laba celiyay xanuunkaas markaa ee corona-19. Yurub dhowr dal oo kamid yihiin Holland, Ingiriiska iyo dalal kale oo dhankooda amray inay gurigooda joogaan shacabkooda. Ingiriiska in ka badan 3 milyan oo qof ay u saameeyeen doonaan bandowga cusub. Shiinaha dawladdu waxay sheegtay inuu jiro shaki ku aadan xanuunka uu ku soo laabtay. Adduunka oo dhan qiyaastii 38 milyan oo qof ayaa xanuunka corona qaaday waxaana ku geeriyooday in ka badan 1 milyan oo ruux. madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilhan Aliyev ayaa wadanka uu dagaalka kala dhaxeeya Armenia uga digay in ay weeraro u geysato goobaha shidaalka. waxa uu xusay in ay jiraan dadaalo lagu doonayo in lagu wargeliyo dhumaha shidaalka ee dalkiisa. hase ahaatee waxa uu beesha caalamka u sheegay in haddii Armenia ay tallaabadaasi qaado ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto. qodobkaasi u dambeeyay war wixii dal iyo dibadda idinkaga hayneed kala socoteen raadiyaha kulmiye mowjada 9.9 warka waxaa halkan si wada jira idinkaga akhrinayna anagoo kala ah Abraar Abshir iyo anigoo Cabdullaahi Xuseen ah. soo saaraha warka waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciiltire, farsamada waxa uu ahaa Mukhtaar Macalin. intaynu ku kulmi doono warkan warkiisa xigeys ma dhaafna saaxiibayaal.